بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maantay shirkeygan hadalka ah waxaan rajeynayaa oo u badnaan doonaa hadduu alla idmo mahad celin iyo howlo kale oo raaci doona. bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo koonkan na keenay, nagu nooleeyey, naguna maamulaya. marka xiga waxaan u mahad celinayaa ururkii RRA ee howl ay qaban weysay ururkii SDM uu qaban waayey qabtay oo suuro geliyey in degmada Baydhabo lagu qabto dib u heshiisiin laguna dhiso dowlad ku sheegi koonfur galbeed. marka xiga waxaan u mahad celinayaa Shariif Xasan Sheekh Aadan oo isagana diyaariyey golo guurto oo ku dhisnaa xaqdarro, diyaariyana baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed ee 3 gobol ku salaysnaa. marka xiga waxaan u hambaleynayaa oo u mahad celinayaa madaxweynaha hadda jooga ee Cabdicasiis Lafta Gareen oo baarlamaankiisii labaad mar kale suurto geliyay xaqiijiyey in laga dhaxwaayo ummad badan oo Soomaaliyeed oo ku abtirsata deegaankaas 3 gobol ah. waxaan u hambaleynayaa baarlamaanku sheega labaad ee laga abaabulay koonfur galbeed, walow dadka qaarkiis Soomaalida degta lagu ignore gareeyay deegaankaas lana siiyey wax la yiraahday xubin sharafeed oo u dhiganta nin Faransiis ah oo ku noolaa deegaanadaas oo kale. waxaan baaq u jeedinayaa wax walba waxay leeyihiin dad loogu daydo. dhibaato kasta oo timaadana ummaday soo martaa. dadka dhibaatadaas ay soo marta haddii ay xaliyaan dhibkii ay soo mareen waxay u muuqataa in dadkaasi ay tusaale u qaadan karaan dhibaatadii ay soo mareen, kadibna ay xallin karaan dhibaatooyinka yimid markaas horyaalla bulshada kale. baaqaas wuxuu ku salaysan yahay ururadii lahaa 3 xaraf ama 4 xaraf ee dhulkan Soomaaliya ka soo dagaalamay ee u badnaa eena ugu horeeyeen ururkii SSDF, SNM, USC, SSNN, USA, SBM, SDM. waxaan leeyahay warnimo yahow intiina nool ee ururadaas kacay ka mid ahaa ee hadda dunida ku nool, waxaan dhihi lahaa ha loo caqli celiyo RRA-da cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Lafta Gareen. ha loo caqli celiyo in aysan wanaag ahayn urur la sameeyo laguna dhibaateeyo bulshada. waayo wax badan ayaad soo aragteen dowladdii rayidka ahayd, dowladdii aan militariga ahayd, wixii ka dambeeyey waad aragteen. burburkii dhacay, dhibaatadii dhacday, haddana xalaa la maraya. dowlad federaal ayaa la qaatay. nidaamkan federaalka ah ee lagu dhaqmayo ee hadda Soomaalida ay qaadatay micnaheedu wuxuu yahay intii wax isku darsan kartaba ha samaysato maamul goboleed. maamul goboleedkii la sameeyey Soomaalidii
loo baahnaa inay iskugu yimaadaan kadibna federaal ay iskugu yimaadaan waxa ka dhacaya koonfur galbeed waa wax aanan daah saarnayn maadaama ay sidaas jirto waxaan dhihi lahaa mar labaad iyo mar saddexaad inta nool ee ka dambeysay raggii baaba'ay ee aan naqiinay ee xuruufahaas soo abaabulay ee maantay dowladda federaalka ka tirsan ama maamul goboleedyada ka tirsan in ay u caqli celiyaan nidaamka hadda meesha ka jira ee koonfur galbeed khaasatan madaxweynaha koonfur galbeed waa nin qaali ah waxaana fili doonaa ra'yiga iyo fikradaha ay ummaddaas ay u keenaan in uu qaado doono hadduu alle idmo dardaaran waxaan la dardaarmayaa beesha gaaljecel ee degta 3 gobol oo ka mid yihiin oo uu ka mid yahay koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed waa 3 gobol 3daas gobolna waa ay degaan beesha gaaljecel waxaan idin leeyahay beesha gaaljecel waad aragtaan dhibaatada ka taagan iyo sida lagu ignore gareeyay maamul goboleedkii deegaanka aad ku aheedeen ee Soomaalida dadka walaalaha ah ee abti ee sanka ah ee meesha aad ku wada noolayd dhulkaas Ilaahay idigu makaniyay ee Ilaahay idigu wada nooleeyay in la yiri gaaljecel walmale wow walmale aniga ninkii yiri isagaa yiri laakiin waxaan igula dardaarmayaa in aad dadka deegaankaas degan ee jaarkiina ay idinla degan in aad kula noolaataan walaaltinimo diris wanaag iyo nolol wanaagsan waxaan idinka codsanayaa oo aan baaqiga ku darsanayaa beesha gaaljecel maadaama 3daas gobol aad geysaan xoolaha lagu nool yahay hilibka ah aad geysaan caanaha aad geysaan waxyaabaha la shito intaba waa 3 kaliya inta badan lagu qiimeeyo deegaanada lagu qiimeeyo maadaama aad tihiin dadka intaasba geeya halkaas ku nool ee degan wax soo saarka beerahana ku leh waxaan idin leeyahay haddii aad u laba jibaari kartaan dadkaas walaalihiina ee diriska ah u laba jibaara haddii aad ninkii neef keeni jiray laba neefa u keeno laakiin hal maado markii la yiraahdo maamul goboleed ama nidaam dawli ah nidaamkaas wuxuu u baahan yahay canshuurta dadka laga qaadayna waa in lagu celiyaa ayaga lagu celiyaa maadaama aadan ka mid ahayn oo halkaas leedinku tirtiray oo kuma jirtaan leedinku yiri haddii canshuur leedinka qaado yaa lagu celinaya yaasa la siinaya waa su'aal u baahan in laga jawaabo marka sidaas daraaddeed waxaad samaysaan canshuurtiina idinka qaata dhulkiina oo Ilaahay idigu makani ku noolaada hadda nidaam ayaad leedihiin maamula leedihiin dad baa idin maamula ma idin dad iska socda xoolo iska socda ma idin waa aad nooshiin maamulna waa leedihiin maamulkiinana si toos u sii hagaajiya oo wanaajiyo dadka walaaladiina ee dirisyada idiguna dirisyadiina ahna ee idinla noolna si wanaagsan oo dirisnimo ah ula noolaada haddii ay ogolaadaan in wax lagu darsadana ku darsada waa dad walaaladiina ah waa ku darsan kartaan haddii aysan ogoleen oo ay la taagan yihiin ereyooyinka dhacay ay raalli kaga yihiin inta aamustay ileen waxaa la yidhaha sukuuna calaamatu rida aamusnaanta waxay ka mid tahay raalli ahaanshaha intii wararka xun jeedisay intii falalka xun samaysay intii inta loo tahay la hor fadhiistay jawaabaha faalsada oo aanan jirin iyo ballanqaadyada aanan jirin samaysay intaba haddii ay ka waantoobaan
ay dadkooda bulshadooda dadka la degan walaaladood ay diriska yihiin ay wada degan yihiin ay deegaanka ilaahay oo ku wada nooleeyay ay ogolaadaan isbedel ay sameeyaan waa alxamdulillaah haddii ay sameyn waayaan waa rabbil caalamiin waxaad leedihiin dal waxaad leedihiin dad waxaad leedihiin dunyo bar iyo beer intaba waa leedihiin ilaahina waa idiin siiyey intiinaas calafsada maamushana saddex xaraf dhibaato badan ee Soomaali soo marsiisay iyo dagaal la abaabulo iyo dad la dhibaateeyo ummad lagu duulo dhibaato badan ee Soomaali soo marsiisay intii taqaanay way taqaan intaan aqoonin oo u sheegaya waxa kaloo jira hadda laftigeeda saddex xaruf la wada sameeysta maamul goboleedyada dhamaantood waa saddex afar waa intaas u badan yihiin xisbiya la sameeyay xisbiyada sidaas oo kale dhammaan xuruufahaas waa dhibaatooyin badan la soo maray intii joogtay ayaa joogtay inta ilaahay uu ka badbaadiyay ee nolosha hadda ku sugan inta kale oo aan ka warqabin ha u aqal celiso ha tiraado waxaan ka joog fiiro gaar ah hadalkan aan jeedinayo waxaan ugu talagalay kuwa aqliga u saaxiib ah hadalkan waan ku soo celinayaa hadalkan aan jeedinayo waxaan ugu talagalay kuwa aqliga u saaxiib ah kuma jiraan kuwa aanan aqliga u saaxiibka ahayn والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته